هذا السجلته وحين نقول سida ay qabiilooyinka u kala fog yihiin bay noqonaysaa marka saas ay mar walba ay u socotaa waa inaad sidaa u fahantaan kuwa waxaa jira xagga ugu dambaysa qabiil ahaan aan sheegin weli waan marka dhaweyto qaar qabiil ahaan wixii jifra ahaan aan u tiriyey qabiil ahaan waan ka tegey oo maana soo qaadanin taas iyada waxaa weeye magac cudurdaar ma odhanayo hadalka dhigtaya la soo saarin aan la iska dayo cudurdaar ma jifra ahaan baan uga tegey kuwa هذا بنيه سلادين هذا بنيه سلادين تاع اسكالا ماشن سلادين تاع اسكالا ماشن سايبه كرسي كذا سلادين تاع اسكالا واسكان دي هيا كلمه معني سيحه جيان بالله انا واس بشير واس كيلي واس اسماعيل واس علي قرونا وحن لنا همبل يا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله ما هذا يسكله الله لله رب العالمين مرك الله وحا ما هذا يسكله بعض dhaqanka oo ugu horeeyo garaad kulmiye garaadka guud oo ugu horeeyo ugaasiyada suldaamada culimaadudiinka munaasabadan dadka ka soo qayb galay dhammaantood waan u mahadcelinayaa الحمد لله رب العالمين انت كدب bulshooyintani soo dooratay waxaan u sheegayaa inaan ugu shaqayn doono ciidanka Ilaahay cadaalad inaan ugu shaqayn doono Allahna waxaan ka baryayaa inuu ina waafajiyo waxa ku darayaa inta waxaan ku darin insha Allah maartay inaan wada shaqayn doono xilka culus ee la yeedmaday inaan maartay ilaahayna ka baryayno inuu noo fududeeyo bulshada iyo maartay dadka ka soo qayb galana Allah barakeeyo waxaan ka codsan bulshada inay ila shaqeeyaan idamka Ilaahay Allah waanu adeegi aragtidooda ugu adeegi inay ii soo duceeyaan baan Ilaahay ka baryaa halka madasha la diyaariyay ku soo fariisto garaadka guud maxaan ku dhahaa garaadku wuxuu taagan yahay ilaa iyo hadda wuxuu taagan yahay inuu soo fariisto waasku halkaasi uu la hadlo kelmado ku aadan iyo waanada iyo wixii talooyina uu halka laga soo jeeyo waxaad u doorateen inaad maqashaan wuxuu idiin soo qaaday inaad qaadataan dhammaantiin ugaaska sidaynu maanta farxadda leh aynu u dooranayno inaad u garab gashaan xilliyadan dambe ma jirto maalinka lagu doortaa kuugu dambayn markii hore waxaan lahaa ugaaska hal la xooleeyo aad tiraadid laakiin waxaan hoos xaal ku maqlay in durbaba hawshaasi ay dhammaatay waa xaajo uguba annaga intii kaa horraysayna nalooma samayn ugaas nasiib laa tahay reerkana waan u hambalyeelaynaa xilligan aan joogno xoolaha ururisaan la ii sheegay kuma filno guri iyo gaadhigaa loo baahan yahay wax ka badan marka waxaan leeyahay ehelka ugaaska yaan laga harin ilaa inta la taabagelinayo waxaan intaa leenahay ugaasyada iyo salaadiinta kale ee deegaanka ka timid ee iyaguna ka soo qayb gashay xafladan caleemasaarka iyaguna way mahadsan yihiin ilaahayna miisaanka xasanaadka ha idiin saaro waqti gaaban hadalkiisuna uu gaaban yahay waxaa mar labaad iyo mar saddexaad ku celiyaa ugaas soo dhowow hambalyo ilaahayna ha kugu asturo waxaan si gaara ugu mahadcelinaynaa dadka reer Garbo sida quruxda badan iyo qaayaha badan ee loo kala harin noo soo dhaweeyay iyagana waxaan leenahay ilaahay ha idin barakeeyo aniga markii ugu horeysay Garbo hadda kadib soo noqonaya anigoo la socono ugaas Bashiir aad iyo aad baa mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa salaamayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladda caleemasaarka ugaas Bashiir isagoo ugu horeeya garaadkeenna garaad kulmiye ugaasyada salaadiinta cuqaasha
culimada gabdhaha wiilasha iyo aqoon-yahanada dhammaantood waxaan idinku celinayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad baad u mahadsantihiin reer Garbo xaflad aad iyo aad u qiimo badan baad dhigteen hoolkan aan taagnahay baa aad noo cajabiyey waxaanu isniri malaha reer dhanaanka u soo sheegay oo yidhi qaabka u dhisaa marka waan idinka mahadcelinaynaa xafladiina qiimaha badan iyo saad noo soo dhaweyseen iyo ugaaska sidaad maaragtay aad u maaragtay sharafteen waxaana u maaragtay u hambalyaynaa ugaaska ugaas hambalyo soo dhawow